bandhigweynaha safarka iyo dalxiiska Soomaaliyeed waa dhacdo sanadlaha ah ay abaabulaan Somali Travel and Tourism Expo iyo midowga wakiilada safarka iyo dalxiiska Soomaaliyeed SATA iyaga oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliyeed. Dhacdadani waxay ka dhici doontaa hoolka Sahal 5 iyo 6 Janaayo 2020. Ujeedooyinka bandhigan waxaa ka mid ah sare u qaadista ama dib u soo celinta goobaha dalxiiska Soomaaliyeed iyada oo la gaarsiinayo dalxiisayaasha caalamiga inay dalka imaan karaan in la abuuro fursad ay ku wada kulmi karaan dhammaan shirkadaha ka shaqeeya dalxiiska iyo duulimaadka si ay ula kulmaan customerkooda in sare loo qaado dhaqanka. Bandhigan wuxuu xambaarsan yahay fursadaas oo ah fursad safar dhameystiran 100 qof ka mid ah ka soo qaybgalayaasha fursadaas oo noqon doonta mid waqti nasiib ah iyo laga horumarin fadlan ka soo qaybgal. Mahadsanid.